Barlamanka Galmudug Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa kulan la qaatay saraakiil ka socotay ciidamada AMISOM oo gaaray magaalada Dhuusamare ee caasimadda maamulkaasi. AMISOM iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga deegaanada Galmudug, gaar ahaan amniga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo dhawaan lagu wado inay ka qabsoonto magaalada Dhuusamare. Saraakiisha AMISOM ayaa ballan qaaday inay ka qayb qaadan doonaan ammaanka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi. Guddoomiyaha ayaa ugu warbixiyay saraakiisha AMISOM halka ay marayso doorashada maamulka Galmudug iyo caqabadaha taagan. Kulanka ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ah saraakiil ka socotay taliska qaybta 21 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Guddiga doorashada qabanqaabinaya ayaa 30 bishan u aasteeyay in doorashadu dhacdo, waxaase jira khilaaf arrintaasi ka dhashay oo aan wali la xalin, waxaana kulamada baarlamaanka ka maqan xildhibaanada ka soo galay qoondada ahlu sunna wal jameeca. Cabdinajiib Maxamed Caano, Dalka TV, Muqdisho.